caalamku waxa uu had iyo jeer u dheg taagan yahay inuu wax badan ka ogaado waxyaabaha ka dhacaya Kuuriyada Waqooyi maadaama uu maamulkeedu yahay mid dictatorial waxaana daawadayaal inoo soo gudbinaya 10 waxyaabood oo ka mamnuuca Kuuriyada Waqooyi. Kow, maryaha reer galbeedka. Waxa uu ku tallaabsaday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un inuu ka digo xidhashada Jameska iyo suudhka iyo dhammaan maryaha reer galbeedka isagoo ka hortagaya inuu reer galbeedku saameyn ku yeesho bulshadiisa. Waxaanu u sameeyay labis u gaar ah dadka ku dhaqan Kuuriyada Waqooyi. 2, Coca-Cola. waxyaabaha laga mamnuuca bulshada Kuuriyada Waqooyi ma aha oo kaliya maryaha waxa xitaa soo galaya qaar kamid ah cabitaanada. Sharaabka Coca-Cola ma aha mid aad ka dhexdhexaanayso goobaha ganacsi ee Kuuriyada Waqooyi waxaana inta ugu badan suuqyada laga kala iibsanaya sharaabada wadaniga ah ee ka soo baxa gudaha dalka si ay dhiirigelin ugu noqoto wax soo saarka dalka. 3, timo gaabsashada. suurtagal kuma aha hadaad joogto Kuuriyada Waqooyi inaad timahaaga u xiirto qaabka aad rabto waana isku mid ah rag ama dumar. maxaa yeelay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu xadeeyay 15 qaab oo kaliya inay u xiirtaan rag iyagoo 15 kaas ka soo dhex dooranaya qaabka ay u xiiran lahaayeen halka ay dumarkuna 8 qaab ka soo dhex dooranayaan nooca ay jeclaan lahaayeen inay u xiirtaan timahooda. 4, mulkiyada guryaha. xukuumadda Kuuriyada ayaa iyadoo ah cid iska leh isla markaasina ka mas'uulka ah guryaha iyo dhulka guud ahaan ku yaala dalka. suurtagalna uma aha bulshada inay iibiyaan ama iibsadaan guryahooda. laakiin sanadkan ay ku guda jirna ayaa sharciga mas'uuliyadda guryaha la fudeeyay iyadoo shuruudo kala duwan lagu xirayo cidii doonaysa inay u madax banaanato guryahooda. 5, ka ganacsiga kabaha. haddii aad ku sugan tahay Kuuriyada Waqooyi isla markaasna uu kugu soo dhaco fikirka ah inaad furato xarun ganacsi oo iibsa kabaha waxa tahay mid aanu nasiibkiisu wacnayn maxaa yeelay ma aha ganacsigaagu mid aflaxaya waayo Kuuriyada Waqooyi waxa ka jira hal shirkad oo u sharciyeysan yahay iibka kabaha kadib markii laga dhexdhexday waxyaabo aan muujinayn ama dayasho ah in reer galbeedka. 6, shaashada TV-yada. Kuuriyada Waqooyi waa mid meel walba saartay culayska xitaa warbaahintu ma aha mid seegtay iyada waxaana gudaha dalkaasi ka shaqeeya oo qura 4 TV oo gabi ahaanba hoos yimaada maamulka dawladda. 7, jaraa'idka reer galbeedka. kaliya ma aha TV-yada waxyaabaha culayska la saaray marka laga hadlayo warbaahinta Kuuriya laakiin xitaa jaraa'idku waa mid la cadaadiska waxaana dhammaan mamnuuca jaraa'idada ka soo baxa wadamada reer galbeedka noocyadooda kala duwan waxayna xukuumaddu kaantarooshay wax kasta oo la oran lahaa ama la qori lahaa. 8, qalabka shirkadda Apple. looma ogola muwaadiniinta Kuuriyada Waqooyi inay iibsadaan moobilada iyo waxyaabaha kale ee ay soo saarto shirkadda Apple laga soo bilaabo sanadkan waxaana go'aankani soo shaabaxay kadib markii dawladdu digreeto ay ku mamnuucayso dhammaan aaladaha casriga ah ay soo saartay kuwaas oo ay ka mid tahay waxyaabaha ay soo saarto shirkadda Apple iyadoo bulshada kaga mamnuucday. 9, gaadiidka casriga ah. Kuuriya suurtagal ma aha inaad ka hesho gawaadhida kala duwan ee ciyaaraha ama lagu galo tartamada ee loo yaqaan Ferrari-ga waxayna tani ka mid tahay waxyaabaha muujinaya cunaqabataynta Mareykanka iyo midowga Yurub ku hayo Kuuriyada Waqooyi. 10, dabaaldega diimaha. Kuuriyada Waqooyi waa ka mamnuucin dhexdeeda laga sameeyo dabaaldeg diimeed ama wax shicaar ah oo ama astaan u noqon kara diin gooni ah waxayna aaminsan yihiin inay taasi keeni karto isku dhac dhex yimaada dad iyaga ku dhaqan Kuuriyada Waqooyi.